oo baraha bulshada ku jira ama dadka laba inay wadaan khilaaf ka dhex jira ururka ONLF marka arrintaas ma jirtaa si kooban ururka ONLF khilaaf horta ka dhexeeya ururka ONLF waxa weeye waa urur qaan gaadhay mashhuur ah muddo dheerna maaragtay soo shaqeynayay garaad iyo siyaasad maaragtay qaan gaadhay ku shaqeynaya waa laga yaabaa ummadda markay wada shaqeynaysa waxaa laga yaabaa kala aragti duwanaan inay qodobka laga hadlayo in lagu kala aragti duwanaado shaqada soo socota in lagu kala duwanaado qaabka maamulka in lagu kala aragti duwanaado taasina waa caadi waa sunnatu xayaa wax jiro caadi ah ama xukuumad ha noqoto ama dowlad ha noqoto ama urur ha noqoto laakiin waxyaabaha social media lagu bumbuurnayay orla baa maaragtay kala sida hadda waxay ka muuqatay qoraalkii xukuumadda shabakada faaruq dalkan uu soo dhigay faaruqa garabka maadi wax la yidhaahdo garab maadi iyo garab hebel ma jiro ururku waa hal guddoomiye leeyahay waa guddoomiye cabdiraxmaan maadi shamaad maadi goladha wuxuu leeyahay guddi fulin buu leeyahay waxa weeye shaqadiisii buu si caadi u haystaa marka dadka raba inay ka dhex baayacmushiraan ama ka dhex ganacsadaan ururka dhexdiisa waxaan leeyahay ONLF dhexdiisa waxba idinma yaallo meelo kale ka raadsan ganacsiga noocaas iyo maaragtay kala qaybinta bulshada marka aad baa maasan tahay social mediaha waraysi ay qabteen TV iyo telefishinka loo yaqaan marka waraysigaasi waxaa jiray nin ka soo jeeday qowmiyadda Axmaarada oo dhahay Mustafa Cali Jarro waa midkiista xeela baryan deegaanka Soomaalida dimuqraadiyad uma qalmaan iskumana xukumi karaan waa in gacan bir ah Mustafa iyo qowmiyadda Axmaarada xiriir ka dhexeeyo marka kulli waxaan malaynayaa in badan soo laabto marka ka socota waan u soo noqon doonaa marka koobaad waxaan dhihi lahaa kow waa arrin fadeexad ku ah ummadda Soomaaliyeed xukuumadda iyo dhammaan bulshada Soomaaliyeed inuu nin qowmiyad kale uu yidhaahdo kow maanta xukuumadda ninka xukuma madaxweynaha Soomaaliya deegaanka Soomaaliyeed inuu yidhaahdo waa mingiisa xayla maryam horta sifa fiican ma nin wax u maranaya ammaan inuu haddii loo maray dad baa laga qiiroodaan waa ka in la ammaanay Mustafa lama ammaano la ahay ninkaasi Mustafa uu reebtay anigu ma qabo inay jirto sababta marka mingiisa xayla maryam lagu ammaano magaciisa yani mingiisa waa ninka ummadda Soomaaliyeed heerka maanta ay marayso waqtigii dharkii gaarsiiyey marka meesha sawir foolxun horta ka bixiyay haddaan anigu maanta Mustafa ayn runtii intaan ka hadlo baan arrintaa ka jawaab ka bixin lahaa sababta aniga Mustafa si toos u la fagaaray waa qodob koobaad laba bulshada Soomaaliyeed meel kaga dhacay markii uu leeyahay ummadda Soomaaliyeed dimuqraadiyad uma qalanta ismana maamuli karayaan taasina waxa weeye waa khalad kale oo weyn oo gafa oo uu ka galay bulshada Soomaaliyeed una baahan yihiin bulshada Soomaaliyeed ka jawaabaan saddex haddii ninkaas waan garan karnaa waxa weeye ninku dilay waxa la yidhi harka uma jiro qowmiyadahan uu mingiisa xayla maryam ka soo jeeday ama maaragtay deegaanka Axmaaradu waan ognahay ummadda Soomaaliyeed cadaawad dheer baa ka dhexaysa maantana ninka hadlayaa wuxuu muujinayaa runtii wixii calooshiisa ku jira uu banaanka gaaray marka arrimaha noocaasa bulshada Soomaaliyeed inay ka tabaabushaysato xukuumadduna si waajib baa ka saaran khaladaadka noocaasa marka ummadda Soomaaliyeed lagula kaco inay ka jawaabaan ururada sida ururka ONLF iyo ahdaafta kale ayaguna waxaa muhiima inay si rabta uga jawaabaan oo mowqifkooda dhabta ka caddeeyaan sababtoo ah mar haddii bulshadeenii qowmiyadihii kaleeta ay hoos u liidayaan waa inay bulshadu kow ka dida waxyaabaa noocaas loo dhawaan kuwa yacni moodayay xiriir baa Axmaarada iyo hebel kale horta waa dhaqan xun wey oo la qabtay xukuumaddan iyo xukuumad hebel ay ku xidhan tahay waa fikirka ummaddeena lagu halaagay magarata xukuumadda waxaa la odhan jiray Tigray baa gacanta ku haysa xukuumaddan waa tan hadda maaragtay dadku isla dhex marayaan waxa weye Axmaar uu ku xidhan yahay Axmaara maaragtay calaaqad jeclo leh su-aal baa meesha imanaysa ummadda Soomaaliyeed maxaa markasta inay qowmiyad kale ku xidhnaato binaadam mayna gooniisa maamuli karayn waa su-aalahaas maaragtay muhiim ah marka ummaddu inay isliidda ma aha waa inay jiritaankooda dadnimadooda karaamadooda cisigooda waa inay muujistaan inay u daba fadhiyaan xabashi Axmaar Tigray cid kale midna ma aha qowmiyadaha kale o dhan waa qowmiyada deegaanka degan innaguna qowmiyad waxaan nahay qowmiyadaha ugu xadaarada badan ugu aqoonta badan ugu sharafta badan keliya waxaan u baahannahay inaynan u daba fadhiisanin jiritaankeenna cid kale isleedahay marka arrimaha dadkan deegaanka fikir la-aanta ah ay maaragtay isma inay u wacan tahay maamulada loo soo
soo sameynaya sida hadda Mustafa Cagtar naftiisa waa nin kor laga keenay marka dhibaatada inay u malaynaysaa dabcan arrintaasi waa qodob xaqiiqa weeye bulshadani mayna weli helin si xor ah one man one vote inta usoo baxan deegaanka Soomaalida ogaadeen maynan dooranin Mustafa Cagtar Abdi Barna Ali Barna mayna dhahay waa mar kastaba waxa weeye ruux banaanka laga soo sameeyay baa loo keeni jiray waana dhaqan lagu maamuli jiray oo maamuladii kala soo jireen ka Ethiopia ay markas ku dhaqmi jireen waa arrin khaldan in maanta si la yiraahdo ninkii hooyada guursaday waa adeerkay ninkii hooyada dumaale waa adeerka hadday sheekadu noqoto oo maalinba kii la keeno adeer la inooga dhigo la yiraahdo kan ku qanacdo waa qalad ummadda Soomaalida inay ka kikilata dhaqankaasi muddo soo jiray waa inay la yiraahdaa inaa fiirsana way arrintani waan ka daalay ma yeelayno waa inaan anagu dooranaa masiirkayga madaxweynaha rabno ummadda Soomaaliyeed waana meesha loo soo maraya markii la leeyahay ummadda Soomaaliyeed muqadas kuma maamuli karayso waxa weeye iyo fikirka maaragtay xukuumadda maanta jirta Tigray bay ku xiran tahay xukuumadda maanta jirta Axmaar ku xiran tahay waxay ka imanaysaa madaxweynaha ninkii keenay qoladii kan yaa markaas la fiirinaya marka arrimaha noocaasa waa arrin aan qurux badnayn ummadda Soomaaliyeed baadil ku ah xukuumadda laftirkeedana baadil ku ah marka waa in wacyiga maanta laga shaqaysiiyo xukuumaddana fursad fiican bay haysataa waddankan colaad ka jirin axzaabtii maarata waddanka maarata oo nabadgelyo maarata waddanka maanta ku wada jooga la iskaashan karayo la midoobi karayo si midaysanna ummadda ayagoo Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed waxoodii xuquuqdooda soo dhacsan karaan aad baad mahadsan tahay gabagabadii baan soo gaarnay mudane ugu dambeyn maxaad shacabka deegaanka ku tartaartay waad mahadsantahay shacabka deegaanka waxaan kula dardaarmi lahaa marka koowaad in xanuunadan jira coronavirus ama COVID-19 inay ilaahay baryaan oo ay ilaahay baa markaas lagu carray marka xaaladdu adkaato ilaahay baa lagu carray in ilaahay baryaan kadib maaragtay inay taxadar badan sameeyaan xanuunkan qaabkii looga hortagi lahaa hadday noqoto nadaafadda bulshada oo maarata kala durdurugta arrimahaas waa muhiim weeyaan dhanka waa inta xarunta saabsan dhanka kale laba qodob markaa dhanka siyaasadda iyo dhanka colaadaha deegaanada ku jira waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed colaado badan baa runtii la burinayaa ka jira muddada dambeysa weyn oo wixii salaxaad ka dhacayay waxaan u digi lahaa ka waanin lahaa baan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dadkana waa dad walaalaa colaadaha soo noqonaya ee deegaanada Soomaalida ka dhacaya waxa weeye ummaddu labada wiil isku dhimanaysa waa laba wiil oo walaalaa dagaalo waxa weeye wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaa loo baahan yahay dadka walaalaha ee daaqsinka wadaaga ee abtiga iyo adeerka iyo eedada iyo isu ah wiil iyo walaalkii ah inay maanta aynan inay midoobaan baa ayaan ku dardaarmay wiil dambe oo inaga dhinta tabar uma hayn nooma wanaagsan deegaankeena colaadahan dadku ayagoo nabad ku wada noolaan karaya in colaad la dhex dhigo colaad ku wada noolaadaan ma qurux badan marka waxaan dhihi lahaa dhammaanba deegaanada meel kasta colaada ka jirto ama daaq la isku haysto ama deegaan la isku haysto ama ceel la isku haysto waxaan dhihi lahaa dhulku waa naga badbadan yahay dhulku waa ballaadhan yahay walaalayaal nabadgelyo ku wada noolaada barwaaqiyo bashbash ku badhaadha idinkuna dhexdiina heshiiya dowladeednima heshiisiin karto iskumana kindiri karayso haddaad idinku rabtaan inaad heshiisaan ama aad isdishaan cid idin kala qaban kartaan ma jirto cid isku kindiri kartaan laakiin xukuumaduhu waxay qayb ka noqon karaan inay ama xagga wanaagga ay door wanaag qaataan ama door xumaan ay qaataan xukuumadda waxaa kula dardaarmi lahaa inay door wanaagsan qaadato oo ay dadkan isla inay walaalaha ah ayna isku fiirsanin oo ciidamo kala dhex dhigto in nabadgelyo maaragtay meesha ka samayso dhanka kale xagga siyaasadda deegaanku runtii siyaasado foolxun ugu dhacan soo maray waagii hore soo maray haddana siyaasad aan degenin oo khalkhal ah ayuu ku jiraa waxaan dhihi lahaa bulshadu dib intay u fikirto ha ka fikirto siyaasadaha noocaanihi ma gaadhsiin karayo yoolka ay leeyihiin ee ah inay horumaraan waxaa loo baahan yahay inay ka fikiraan qaabkii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen markii doorashada timaado mustaqbalka axzaabta tartamaysa xisbiyada danaha shacabka ka shaqeynaya khaasatan axzaabtu waa kuwa lasoo tijaabiya kuwa lasoo tijaabiya misaal ahaan onalef oo kaleeto waa xisbi maanta lasoo tijaabiyey isagoo shacab aan dowlad ahayn oo dulka ku jira ayuu shacabka bulshada Soomaalida ogaadeen la falgalay la shaqeeyey masaalix dhex dhigay colaado aad u fara badan oo deegaanka ku horeyna ay ku kala dhex jireen nabadgelyo dhex dhigeen marka axzaabta noocaas ee sida onalef la soo tijaabiyay ama laba inay xisbiga onalef u diyaar garoobaan sidii ay ugu dhiiban lahaayeen inuu wakiil uga noqdo xukuumadda maanta jirta ee deegaanka
halkaan insha allahu tacaala aan rajeynayno inaan ku gaarno barwaaqe baraarad mar labaad waxaan kusoo gebagabayn lahaa kullu caamin wa antum bikhayr ciid wanaagsan ilaahay naga aqbala acmaashii bisha ramadaan yahay mudane carab mas-uulkaas oo ka tirsan xisbiga onalef intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan dambaal waxaan kaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo ciid wanaagsan meel kastaa joogtaan